gudoomiye Faysal Maxamed Xasan Falaalug oo gudoomiyaha jamhadda SSC ayaa caawa baarakowdii habeenimo u anbabaxaya magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. gudoomiyaha ayaa la hadlay jamhadda isagoo ku dhiirigeliyay inay sii wadaan shaqooyinka ay dalkooda u hayaan. waxaan way fara badan tahay waxaan la idinku wargelinayaa oo hadda aan idin wadaagayaa qaybta ay tahay shaqadii al-islaamiga u haydeen. shaqada al-islaamiga u haydeen daraawiishay waxay tahay wafdi baa ka baxaysa. wafdidaasina waxay aadaysaa Buuhoodle. waxaynuna soo midaynaynaa jamhadda SSC ee Buuhoodle iyo Teenatan. soo arrimaha si weysan ma gobolka Cayn iyadoo ujeedka safarkiisu uu ahaa sidii ay wada midoobi lahaayeen garabka kale ee jamhadda SSC ee fadhigeedu yahay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn isla markaana uu hogaamiyo Cabdirashiid Xasan Cali. gudoomiye Faysal Maxamed Xasan Falaalug ayaa safarkiisa intuu ku guda jiray wuxuu soo maray tuulooyin iyo degmooyin aad u fara badan isagoo saaka waa barigii soo gaaray degmada Dandan. waxaa halkaa ku soo dhaweeyay odayaasha iyo waxgaradka degmada Dandan iyagoo bogaadiyay hawsha wanaagsan oo Faysal Maxamed Xasan Falaalug uu hayo bulshada inteeda kale. markay isbedelayaan siyaasadaha kan lagu jiro Soomaalida iyo gaar ahaan deegaanadeena waxaa laga maarmaan noqotay in la gaaray xilligii la kobcin lahaa oo dhinacyo fara badan mid bulsho iyo mid siyaasadeedba loo kobcin lahaa hadafka kan. socodka iyaguna wuxuu ku saabsanaa inaanu deegaamada reer SSC inta aanu ka gaari karno aanu gaarsiino tabliiq wax iska celina mid culimaa baad arkisteynay kana waa waafaqsan yahay diinta islaamka waayo qofku ilaahay xuquuqu u jideeyay baa jira inuu ilaashado. marka taa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bal marka hore waa hadalka tirahan waa fiicantiin oo waxa tiraan tabliiq baanu ahayn. tabliiqu waa shayga loo baahan yahay oo waxa dadka wax gaarsiiya fariimaha waxa gudbiya. diinteenu tabliiqaas ay inoogu timiyo adduunka lagu gaarsiiyay wax kastoo wanaagana waxay ku tagaan carabka oo حتى واحد اللي جهاد كإسلامكم ما فرّ إلا عرب كل جاتو شيء عنتم ما فرّ واحد بالآذن كسكو أفكرته وعرب كأنه كوضح الله مركا هذا الكايساقا ديوان سود وينينا سيدو وكله أنا رويد الله تبلغ عينينا أفتنتا نسوق عرسيسين يماتن كنا نوتي مادين هذه أدنى وفرح سنة وادين hambalyeynina wadin soo dhaweynina. ugu dambeyn waxaa degmada Dandan soo gaaray ciidamada sida gaarka u tababaran ee jamhadda SSC iyagoo halka gudoomiyaha ka soo galbiyay isla markaana u soo galbiyay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn halkaas oo ay ugu diyaarsanaayeen garabka kale ee jamhadda uu hogaamiyo Cabdirashiid Xasan Cali. marxabayn iyo soo dhaweyn kadib waxa ay la hadleen warbaahinta. aad baan maaragtay ugu faraxsanahay waxa weeye maaragtay halgama waxaan ku leenahay ku soo dhawaad waxa weeye maaragtay waa magaaladaadii oo gobolkaagii in badan baan ku sugaynay inta kadib guud ahaan dadka ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaan u sheegaynaa in maaragtay goboladu ay taagan yihiin halgan dib u xoreyn waxa weeye maaragtay waxaan kala ogeysiinaynaa dadka ku nool gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in waxa weeye talada ummadani ay leeyihiin halgamayaasha u halgamaya ummadani inay xorowdo. waxaan kala u sheegaynaa inaysan taladani waxba ku lahayn dadka waxa weeye maaragtay ummadani lugoonaya ee waxa weeye maaragtay maamulada cadowga inoo ah ee waxa weeye maaragtay sida SNM iyo wixii la mid ah waxa weeye maaragtay u xaqlinaya ama waxa weeye maaragtay ku soo hogaaminaya ama doonaya inay gacanta ummadan u geliyaan ama magaaladan aan joognaha nala joogeen ama ha ka maqnaadeen oo waxa weeye maaragtay meelaha waxa weeye cadowga ay ugu shaqeeyaan hala joogeen. waxaan u sheegaynaa meel allaale meesha ay joogaan inaysan talada ummadan iyo qadiyaadkeeda aysan waxba ku lahayn
marka waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta taladii ummaddan ciddii iska lahayd ciddii u taagnayd ee naf iyo maal ku bixinaysay oo ugu horeeyo waxa weeye maaragtay halgamaanegeennii weynaa Faysal Falaalug waxa weeye maaragtay ku soo dhawaa waxa weeye maaragtay halgamaa jamaacadda SSC taliyayaashiisa saraakiisha kala duwan bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka runtii halka kan taariikhdu qori doonto aan soo koobi karin haddii sabanba iska dhacay meeshay isu taageen dadkan iyo dalkooda taariikhdu aad baanu marka hore uga mahad celinaynaa gudoomiyaha iyo jamhadda iyo bulshada tan qaybaheeda kala duwan soo dhaweynta qiimiga leh oo aad noo samayseen gurigayagii nagu soo dhaweyseen ilaa maanta bacadka noogu taagnaydeen aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa reer Cayneed waa laydinku yaqaanay daliilka intaa leeg aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin intaa kadib bacad baynu taagannahay waynu kala war heli doonaa arrintu waxay ku dhan tahay intaa guddoomiyuhu sheegay cabdi annagu safar baanu ahayn sidaa guddoomiyuhu sheegay safarka iyagana wuxuu daaran yahay in dalkan iyo dadka kan midnimadooda la baadi doono marka koowaad waxaanu idiin sheegaynaa oo idinku bishaaraynaynaa marka koowaad in jamhadihii hawd iyo lugaal kala joogay midaynteedu ay kow ka tahay safarka yaga marka labaad waxaanu ku quusinaynaa cadowga dalka kan waxyeelada ku ah taariikhdan iga sarraysa ay ku caddahay waxyeelada ay ka geysteen ilaa iyo haddeerna wada waxaanu ku quusinaynaa in wakhtigoodii dhammaaday oo aan wakhti u hadhin ma rabno dhiiggooda waxaanu leenahay waa dhammaatay wakhtigii tacaddiga aad dadkan ku samaynayseen war dhiiggiinna dooni mayne habta ugu dambaysa haddaad abtirsiinyaha islaamka ku abtirsataan intaana warmaha idinla iman war orda guryihiinna iska aade sidaasaan iyagana leenahay qodobka saddexaad ama ka afraadba kuwa naga maqan oo sida khaldan nooga maqan marka hore waxaanu leenahay allaha idin soo hadiyey marka labaad waxaanu leenahay ilmaadeerayaal waxaad yeeshaan intii meelaha baadida lagu kala ahaanayay way dhammaatay dadkana dulqaadkii waa ka dhammaaday idinka laftigiina wakhti idinma hadhin dhaqso uga soo qayb qaata hawshan aad wax ku leedihiin haddii aad ka soo qayb qaadan weydaan oo cadowga sida aad ugu adeegaysaan ugu adeegi jirteen aad ugu adeegaysaan ogaada noogama sokaysaan cadow iyagana sidaasaanu leenahay fursad baad haysataan hallumina ma rabno wiil abtirsiinyuhiisu sooliyo sanaag iyo cayn uu yahay inay xabadda yadu ku dhacdo dooni mayno in adeer waxaanu leenahay allaha ku soo hanuuniye kaalay halganka qaybtaada ka qaado baadi baa tahay dib ilaahay ugu noqo dadkaaga iyo dalkaagana u soo noqo iyagana sidaasaanu leenahay qodobka shanaad dadka kani waa Soomaali asaliyan waxay u yihiin Soomaali bay u yihiin islaamnimada ka sokow abtirsiinyahoodu waa Soomaali waxay horeyso iyo dambaysaba u dhimanayaan qarannimada iyo midnimada Soomaaliya ayay u dhimanayaan u dhiman jireen awoowayaashay ay ku soo dhinteen kuwa haddeerta naga baxayna ay u dhimanayeen kuwa kaarayaashin la marinayeyna ay u dhimanayeen ilaa iyo haddeerna ay u dhimanayaan ummadda Soomaaliyeed waxaanu leenahay ay mas-uuliyiintu ugu horeyso war dadka kan isa soo barbartaaga calanka buluugga weeye waxa ay ku dhimanayaan war Soomaaliya calanka buluugga oo inaga dhexeeya bay u dhimanayaan dadkani xataa iyagoon oo kaarayaashan loo marinaya oo maxay ahayd dhibaatada intaa leeg ay maxay ahayd ku qabaan oo aad kaga baxdeen war isa soo barbartaaga oo maxay ahayd calanka buluugga la difaaca ummadda Soomaaliyeed sidaasaanu leenahay
dowladdan maanta hogaaminaysa federaalka uu hogaaminayo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waanu taageersanahay waa dowladdii Soomaaliya mugdi badan iyo inkaara badan bay ka soo saartay ummadda Soomaaliyeed dabadii aanu doonaynay oo Soomaalinimo ay xagta ku haysaa iyagana haddaanu dhaliil soo jeedinayno waxaanu leenahay indhihiinnu ha arkeen dadkan calanka buluuga ay kafanta u tahay ha arkeen indhihiinnu mudanayaal xaqoodana siiya iyagana sidaas aanu oran lahayn aad iyo aad baad u mahadsantihiin bacad baynu taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi axmed cabdi munamandeeq magaalada buuhoodle xarunta gobolka Cayn